Caalamkan aan maanta ka hadli doono waa caalam aan aad uga cabsano laakiin wax badan kama naqaan. Inaan garan weyno ayaa inoo wanaagsan sababtoo ah cilmi aan u yeelano caalamka jinka waxay nagu abuuri kartaa walwal aan kala go' lahayn. Xalaqadan maanta waxaan wax yar ku faaqidi doonaa caalamka jinka oo aan ka diyaarinay xog aad u xiiso leh. Xogtaas oo aan nagu abuureyn wax cabsi ama walwal ah. Kusoo dhawaada barnaamij xiiso leh maanta. Waxaa jira jin lagu magacaabo al-jinnul caashiq. Haddii aad iska bixinayso dharkaaga, dheh bismillaah si uuna u arkin cawradaada, waayo eegmadiisa aad ayay u xun tahay. Jaathum waa qayb ka mid ah jinka, wuxuuna joogaa gadaashaada ilaa aad ka hurdo. Markii aad seexato wuxuu fadhiisanayaa xabadkaaga wuxuuna isku dayayaa in uu ku dhibo ama kaa qaso hurdada. Akhriso Qur'aan ama duco inta aadan seexan ka hor. Jinku agtaada wuxuu ka fogaanayaa masaafo aad u fog haddii aad hal mar magaca Allah ku dhawaaqdo. Ma ogtahay in ay macquul tahay in uu kuu jawaabo jinka marka aad cod dheer ku dhawaaqayso? Waxaa kuu wanaagsan inaad bisinka qabsato marka aad wax tuurayso iyo marka aad qabsanayso meel kaa koraysa. Laga yaabaa in jin halkaas hurdaya uu jiro, dhibaatana aad gaarsiiso, aadna ka hesho jawaab culus. Shaydaanka ma kicin karo qofka u hurda dhinaca midig, kumana ciyaari karo riyooyinkiisa ilaa uu ka bedelo dhinaca midig. Waxaa la sheegaa marka aad dooriso shay gubanaya ama dab sidaas oo kale ayna jirin wax agtaada ka gubanayo, ogow waxaa agtaada taagan jin oo ayagu waxaa laga abuuray dab. Sidoo kale jinku waxay leeyihiin shacab iyo qabiilo, caalamkooduna waa sida caalamkeena oo kale. Boqortooyo iyo diimo kala duwan ayay leeyihiin waayna isku xukumaan. Uma suurtagelayso in jinku uu dhibaateeyo qof adkaarta akhrista. Ma garanaysaa waxay kala yihiin al-khubuth iyo al-khabaa'ith? Khubuth waa lab, khabaa'ithkuna waa dhadig, labadooduna musqulaha ayay joogaan. Sidaas darteed marka aad musqusha galayso dheh Allaahumma innii acuudu bika min al-khubuthi wal-khabaa'ith. Ku xeeldheerayaasha jinku waxay sheegaan in caqliga jinka uuna la mid ahayn caqliga insiga. Tusaale ahaan, caqliga jinka ee qaangaarka ah wuxuu la mid yahay caqliga canug 10 jir ah oo insi ah. Ma jiro insaan aan la kulmin jin. Laga yaabaa mararka qaar inaad aragto qof kugu cusub qaab ibni aadan leh, laakiin xaqiiq ahaan jin ah. Ahaw qof si degan u hadla xilliga dambe habeenkii haddii aad dad u wacayso. Waxaa laga yaabaa in haddii insigu uu kuu jawaabi waayo aad jawaab ka hesho jinka. Jinku meel walba ayay joogaan, ha yaabin haddii aan ku dhaho mid ayaga ka mid ah ayaa kula fiirsanaya fiidiyogan. Agtaada ayay joogaan wayna kula fiirsanayaan sida adiguba aad u fiirsanayso oo kale. Akhriso suuradaha la isku yiraahdo macaawiditaanka si aad uga nabad hesho. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caalamka jinka. Nabadgelyo.